kulanto wacan wanaagsan saaxiibadaan ku saaxiibnay channelkeena gundhiga wararka maalin wanaagsan meel kasta dunida aad ka joogtaan waa maalnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay 22 bisha 9 sanadka 2019 maanta axada saaxiibeel qodobada wararka ugu waaweyn ee warkeena aad ku daawo doontaan waxa ka mid noqon doona gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxa markan uu joojiyay shaqaaleynta shaqaalaha cusub uu qaadan lahaa gobolka Banaadir xog buuxda kaga haya sababta loo joojiyay shaqaalaha cusub iyo baqdin laga baqdin qaba in mar kale gobolka Banaadir ay ka dhacaan qaraxyo waxa kale oo wararkeena ku jira magaalada Muqdisho waxa yeelan doonta 4 wado oo laga soo galo go'aankaasna waxa dejiyay maayarka cusub ee caasimada Cumar Finish warbixino ku saabsan ayaa qayb ka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo la sheegay inuu ka dambeeyay iscasilaadii wasiirka xigeenka xanaanada xoolaha dhalac oo isku casilin maxay tahay sababta ugu weyn ee madaxweynuhu ka dambeeyay masadaba arintan inay ku cadaadisay beeshiisa waxa kale oo wararkeena ku jira waqtiga uu dhacaya arooska Ilhaan Cumar iyo saaxiibkeeda Meetin oo la shaaciyay iyo qoyska Trump oo lagu cazumay waxa kale oo ku jira Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya oo ka fikiraya arin ka yaabi doonta maskaxda aan gali doonin ee ku saabsan dacwadda badda u diyaar garooba qodobadaasi kuba kale saaxiibada wararkeena maanta inaad ku daawataan qaybka al-shabaab oo 60 neef oo 600 neef oo geela ka qaaday beelaha Abgaal iyo Xawaadle waqtiga uu dhacaya arooska Ilhaan Cumar iyo waliba saaxiibkeeda Meetin ayaa la shaaciyay iyo qoyska Trump oo lagu cazumay iyo Soomaalida ka qayb gali karta arooskaas oo aan fursad badan u helin waxaan xog buuxda kaga hayaa waqtiga uu dhacaya arooska Ilhaan Cumar iyo waliba saaxiibkeeda Meetin kaas oo la shaaciyay iyo waliba qoyska madaxweyne Trump oo lagu cazumay ka qaybgalka arooskaasi iyo Soomaalida ka qayb gali karta arooskaasi oo aad u yar warbixintan ayaan dul istaagayna warar lagu kalsoonaan karo oo helay channelkeena iyo waliba ilo ku dhadhow Ilhaan Cumar ayaa sheegaya in Ilhaan bila kadib ay la aqal gali doonto Meetin oo muddooyinkii dambe u dhaxiyay xiriir saaxiibtinimo labadooduba xogtan ayaa sheegaya in Ilhaan iyo Meetin ay ku heshiiyeen aqalgalkooda sanadka soo socda bisha Janaayo 2020 gaar ahaan 10ka bisha Janaayo kaas oo ka dhici doona magaalada New York caasimada wadanka Mareykanka arooskaas ayaa la sheegay in lagu cazumay dad magac ku leh Mareykanka iyo waliba dawladda balse Soomaalida arooskaasi ka qayb gali karta ayaa kuba aan aad u badneen dadka lagu cazumay arooska ayaa waxa ku jira fanaaniin waaweyn oo dunida saameyn ku leh gabdhaha uu dhalay madaxweynaha talada haya Mareykanka Donald Trump iyo xubno kale Ilhaan Cumar iyo ninkeedii hore Axmed Xirsi ayaa la sheegaya inay kala tageen sida ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta caalamka waxaana la sheegay in Ilhaan haatan ay nolosha guri aad u qaalisan ay ku nooshahay halka ninkeedii hore iyo waliba caruurteedna ay degayn guri hore arooska Ilhaan ayaa hadda lagu balamay inuu dhaco bisha Janaayo 2020 tobankeeda wuxuu noqon doonaa aroos si weyn loo hadalhayo saameyn ku yeesha wadanka Mareykanka waxaana la sheegay in lagu cazumay gabdhaha uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Trump iyo Ilhaan qododana siyaasad ahaan isku ma fiicna hagaag wararkeena kale qodobada ka harayna waxa ku jira madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ku fikirayaa arin ka yaabi doonta maskaxdan aan gali doonin oo ku saabsan dacwadda badda Uhuru Kenyatta ayaa arintan ku fikiraya si loo xaliyo kiiska waxaan xog buuxda kaga hayaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ku fikiraya arin ka yaabi doonta maskaxdan aan gali doonin waa maxay arintaasi sida ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta dalkaasi Kenya ayaa waxa la sheegay in madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta uu qorsheynayo in uu xogaa ka dabco go'aankiisa ku aadan muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya Uhuru Kenyatta ayaa la sheegay inuu qorsheynayo in maxkamadda uu geeyo arin la xiriirta inuu qaybiyo qaybta isku hayaan Soomaaliya iyo ayaga maadaama ay yihiin laba dawladood oo walaalo ah Uhuru ayaa dhanka kale la sheegaya in qorshahan uu la kaashan doono siyaasiyiin saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliya arintan ay ka dhaadhicin doonaan si uu ogolaado madaxweynaha talada haya ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo taas oo qayb ka noqon doonta hadii la isku fahmana lagu soo afjari doono muranka badda ee waqtiga badan qaatay u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya arintan ayaa si weyn loo hadalhayaa warbaahinta Kenya gaar ahaan kuwa gudaha ayaa si weyn arintan u falanqeynaya kiiska maxkamadda waxaana siyaasiyiin Kenyan qaarkood ay sheegayaan in Uhuru Kenyatta yahay shakhsi riyoonaya oo aysan suurtagal ahayn
arintan markan Uhuru Kenyatta uu ku riyoonayo ee ah in la kala qaybiyo biyaha ay ku murusan yihiin labada dowladood. bisha November 4 ayuu qorshu yahay in maxkamadda Hague cadaaladda ay wada tagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya halkaas ay hortaalo kiiska dacwadda badda ee labada dowladood waxaana markaa wixii ka dambeeyay la fili doonaa ama la sugi doonaa natiijada maxkamadda. warbixintana ugu dambeysana madaxweynaha Soomaaliya miyaa ka dambeeya iscasilaadii dhalac ee wasiirka xogeenka xanaanada xoolaha ayaan markan dul istaagi doonaa. xog buuxda waxaan kaga hayaa madaxweyne Farmaajo miyaa ka dambeeyay iscasilaada wasiirka xogeenka xanaanada xoolaha ee si lama filaana isku casilay Masar dhalac. warbixintan ayaan dul istaagi doonaa. waxaa xalay si lama filaana isku casilay iscasilaadiisana ku dhawaaqay wasiirka xogeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda Soomaaliya Cabdikariin Khaliif Cabdi Dhalac kaas oo sheegay inuu isku casilay faragelin dowladda Soomaaliya ay ku hayso maamulka Galmudug saadarteedna uu shaqada uu ka tagay. wareegtada uu isku casilay oo helay channelkeena ayaa ogaatay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ka dambeeyay iscasilaada wasiirka xogeenka kadib markii kulan uu dhaxmaray siyaasiyiinta beesha Saacad Habar Gidir iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo kaas oo madaxweynaha uu si toos ah ugu farageliyay xilka madaxtinimada Galmudug asagoo oo u ololeynaya musharax ka soo jeeda beel kale oo madaxweynuhu la doonayay inuu qabto xilka madaxtinimada Galmudug. madaxweyne Farmaajo ayaa siyaasiyiinta beeshan uu kamid ahaa Cabdikariin Dhalac u soo jeediyay inay iskaga haraan tartanka madaxweynaha isla markaana ay joojiyaan isla markaana jagooyin kale loo raadin doono taas uu ka carooday wasiirka xogeenka oo hore kaga tirsanaa dowladda federaalka. madaxda dowladda ayuu sheegay inay u gacan dhaafeen beeshiisa oo wax tala aan laga siinin dhismaha Galmudugta cusub waxaana la sheegayaa in iscasilaadiisa ay u sabab tahay in beeshooda ay baadigoobayeen inay naqdaan ama isku soo sharaxaan xilka madaxtinimada laakiin dowladda federaalka arintaas ay ka diiday. loolanka xilka madaxweynaha Galmudug ayaa si xoolo kaga socda wuxuuna madaxweyne Farmaajo uu noqonayaa taageerada uu kala laabtay asagoo markii hore si weyn loo xaqlinayo madaxweynaha inuu taageersan yahay musharaxa Cabdi Dheere kadib markii kooxdiisu ay ku qancisay inuu taageero musharaxa dowladdu ay sida weyn hadda loo xaqlinayo Axmed Cabdikariin Kaariye Qorqor ninka la yiraahdo kaas oo hadda musharaxa sida weyn loo taageerayo loona badinayo in dowladda federaalka Soomaaliya ay dhaqaale badan ay ku bixinayso. beesha Saacad Habar Gidir ayaa si weyn u baadigoobayay xilka madaxtinimada maadaama dhowrkii sano ama 8 sano ugu dambeysay ayagu ay hayeen xilka madaxweynaha Galmudug. marka koowaad uu qabtay Cabdikariin Xuseen Guuleed marka labaadna waxa uu ahaa Axmed Ducaale Geelle Xaaf hase yeeshee markan dowladda ayaa qorsheynaysa in isbedel lagu sameeyo awood qaybsiga beelaha iyo waliba beesha helaysa madaxweynaha Galmudug. wararkan kale waxaa ku jira duqa Muqdisho oo markan go'aamiyay in wax shaqaalaha aan laga qaadan xarunta gobolka Banaadir iyo cabsi laga qabo. arinta ayaan dul istaagi doonaa. maamulka gobolka Banaadir ayaa isku raacay joojinta shaqaalaha cusub ama shaqaalaha cusub in la qaato ee dowladda hoose ilaa amar dambe sida uu channelkeena gundhiga wararka uu sheegay mas'uul ka tirsan dowladda hoose Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa sheegaya in dhamaanba ayaa ku wargeliyay gudoomiyaha iyo waliba ku-xigeenadiisa waa gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo ku-xigeenadiisa iyo odayaasha dhaqanka ee xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in la joojiyay dhamaanba qaadashada shaqaalaha cusub ee kamid noqon doona dowladda hoose ee gobolka Banaadir ilaa iyo muddo bilaha. Cumar Finish ayaa dalbaday in la siiyo fursad uu ku soxo nidaamka shaqaalaha ama shaqaaleynta gobolka Banaadir oo u baahan in dib u ogis lagu sameeyo si loo xoojiyo hubinta qof kasta taas oo ay qaadan doonto muddo bilooyin ah sida ay noo sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka Banaadir. arintan ayaa waxaa sababay weerarkii ka dhacay aqalka hoose ee dowladda Xamar 24 July 24 July sanadkan kaas oo lagu qaarijiyay gudoomiyaha gobolka iyo waliba xubno kale oo mas'uuliyiin ah. dhalinyaro u badan oo gaaraya kumanaan kun oo qof ayaa rajo wanaagsan ka lahaa in laga shaqaaleysiyo gobolka Banaadir hase yeeshee go'aanka Cumar Finish ayaa rajo beel ku riday marka loo eego go'aanka lagu joojiyay shaqaaleynta dadkii la qaadan lahaa ee ka shaqeyn lahaa gobolka Banaadir. isla wararka la xiriira duqa caasimadda intaan ka bixin Muqdisho waxay yeelan doontaa 4 wado oo laga soo galo go'aankii dib u furista caasimadda waa la joojiyay. gudoomiyaha gobolka ahna duqa caasimadda Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo waliba guddiga uu magacaabay ka shaqeynta furitaanka wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa dejiyay qorshe lagu soo furi doono wadooyinka caasimadda. guddigan ayaa soo jeediyay in magaalada Muqdisho ay sideeda u xirnaato ilaa amar dambe balse
4 wado oo laga soo galo ay noqon doonto kuwa la furi doono kuwaas oo isticmaalayaan doonaan dadweynaha iyo gaadiidka goobahaas oo meelaha hadda gaadiidku ay ka cagayiin sida ila xogaal ah ay channelkeena u xaqiijiyeen. Guddigan ayaa isku raacay in laga soo bilaabo halka la yiraahdo Marinaayo ilaa iyo isbitaalka Digfer la furo oo lala dhigo 2 control oo kaliya oo ay gala oo lagu hubiyo gaadiidka soo galaya xamarweyne ilaa kilometer 4 iyo goobaha kale oo hadda xiran. sidoo kale waxaa la sheegay in goobaha kale ee la furi doono ay qayb ka tahay wadada aada Afgooye ilaa Seebiyan halkaas oo gaadiidku ay laga celiyo la isku raacay in wadadaas la furo kaliya lagu soo koobo checkpoint oo ciidanku ay ku hubiyaan gaadiidka. dhammaan baraha kontaroolada ee laga soo galo magaalada Muqdisho ayaa la geyn doona ciidamo booliis ah kuwaas oo si toos ah kaga amar qaata gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda waxaana loo qori doonaa lacago dheeraad ah marka loo eego mushaarka hadda ay qaataan. sidaas waxaa noo xaqiijiyay xubin kamid ah maamulka gobolka Banaadir oo la hadlay channelkeena Gundhiga Wararka laakiin diiday inaan magaciisa baahino. gaari kasta oo soo galaya caasimadda ayaa waxaa la sheegay inuu bari doono bara control oo aad loo adkeeyay baarisna lagu sameyn doono si loogu taxadiro qaraxyo al-shabaab ee ka geysan caasimadda. dad badan ayaa ku talinaya in gabi ahaanba aan la furin wadooyinka caasimadda maadaama al-shabaab ay heli karaan fursado dad badan ay ku laayaan. waxaase soo baxaya cadaadis badan oo Cumar Finish saaran oo ku doonayo inuu ku furo wadooyinka iska xiran ee caasimadda. guud ahaan wararkaas ayaa ugu waaweynaa saaxiibayaal channelkeena maanta aad ka daawaneysaan Gundhiga Wararka. xasuusnaa daawada inaad subscribe tiraahdo gambaleelkana taabato warkan kan xiga intaan ku kulmeyno nabadgelyo.